السلام عليكم ورحمة الله وان سلامي دمان ولا ku xiran channelka waxaan maanta jeclaystay inaan idin la wadaago ahmiyada iyo qiimaha uu leeyahay waqtiga iyo tusaalooyin cadcad oo ku tusinaya in waqtigu yahay nolosha iyo cumriga shay walba oo hareerahaaga yaalahi waxa uu ku tusinayaa qiimaha waqtiga aad nooshahay soo bixitaanka qorraxda ama dhicitaankeeda iyo isbedbedelka dayaxa uu ka yaraanayo maalin uu ka weynaanayo sidii uu shalay ahaa iyo dhaqdhaqaaqa kawaakibta iyo xidigaha u dhaxeeya samada iyo cirka samada iyo dhulka waxyaabahaas oo dhami waxa ay si cad u tusinayaan qiimaha uu leeyahay waqtiga iyo in waxyaabaha sababta u ah dhaqdhaqaaqaas ay sameynayaan uu yahay waqtiga arkaanta islaamka ee shanta ah iyaduna waxa ay ku tusinaysaa ahmiyada uu leeyahay waqtigu salaadaha waajibka ah ee Ilaahay uu inagu farad yeelay inaan tukano 5 salaadood habeenkii iyo maalinkii waxa si cad uga baranaysaa in waxa kaliya ee duhur iyo casr u dhaxeeya uu yahay waqti tusaale ahaan marka aad tukatid salaada duhurka ee aad ragcada u dambayso tukatid aad salaamo naqsatid waxa aad garanaysaa in salaadaas iyo camalkeediiba ay tagtay aysan soo laaban doonin ilaa maalinka qiyaamaha laga gaaro waxa aad sugtaahina ay tahay salaada casrka waxa u dhaxeeya salaadii duhur ee tagay iyo casrkana ay tahay waqtiga oo aadan isla markaa salaada casrka hore ka tukan karin waxa waajib kugu ah inaad sugtid salaada casrka inaad tukatid waxa ka xiga waxa weeyaan waqtiga bisha ramadaanka markii ay soo gasho bil ramadaan waxaad xaqiiqsanaysaa inaad soo dhameysatay sanad kaamil ah cimrigaagiina uu go'ay ama cimrigaadii uu nusqaamay sanad uu cimrigaadii ka nusqaamay dibna uusan sanadkaasi kugu soo laaban doonin sakada markii bisha sakada la gaaro ee aad xoolahaaga iyo maalkaaga ka bixisid wuxuu Ilaahay uu ku faray ee la soo gaaray sanadkii kale ee hadana bixin lahayd sakadii waxaad ogaanaysaa inuu sanadku soo dhamaado adoo wali xoolahaaga iyo hantidaadii haysta cimrigaagiisa uu nusqaamay oo uu sanadka go'ay waxyaabahaas oo dhamina waxa ay tusinayaan qiimaha uu waqtigu leeyahay marka uu dilaaco fajrka ee ay soo baxdo qorraxda waa bari waa inoo yeeraysaa waxa ayna ina leedahay ibn aadam waxa aan ah maalin cusub waxana aan marqaati ka noqon doonaa camalkaada iyo waxa aad maalinkaada qaban doonto mana soo laaban doona ilaa laga gaaro maalinka qiyaamaha xasan al-basrina waxa uu leeyahay ibn aadam inma anta ayyam idaa dhahaba yawmun dhahaba ba'duk macnaheedu tahay ibn aadam matiid waxaan ka ahayn maalmuhu la isu geeyay haddii ay maalin tagto waxaa tagay oo baxay qayb adiga ka mid ah waxa uu leeyahay saxaabiga la yiraahdo Abdullah bin Mas'ud kama shalaaya shay shalaygu waa inay qorraxdu ii dhacdo iyadoo ajashaydii nusqaantay camalkeygii maalintaasna aan waxba ii siyaadin imaam Shaafici waxa uu leeyahay al-waqtu kas-sayf in lam taqdachu qad'ak wan-nafsu in lam tashghalha bil-khayr shaghaltak bish-sharr macnaheedu tahay waqtigu waa sida seefta oo kale hadii aadan adigu jarin isaga ayaa ku jaraya naftana hadii aadan ku mashquulin khayrka waxa ay kugu mashquulin doontaa sharta nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ina baray in marka hurdada aan ka soo kacno aan dhahno alxamdulillaahi alladii caafani fi jasadi wa radda calaya ruuxi wa adilli bidikri oo macnaheedu tahay waxaa mahad iska leh Ilaahay iyo caafiyay jirkeyga uguna soo celiyay ruuxdeyda iina ogolaaday dikrigiisa iinan isaga xuso macnaha ducadaana waxaynu ka baranaynaa in Allah subxaanahu wa ta'ala uu kuu saamaxay inaad noolaato maalin kale oo cusub waqtiga in la dayaco ayaa ka daran geerida waayo waqtiga waxa uu ka jira Allah idaarta aakhiro geeriduse waxa ay ka jirtaa adduunka iyo ehelkeeda waqtigu waa macallin wuxuuna macallin u yahay cid kasta oo aan lahayn macallin muhiimna ma ahan inaad waqtiga oo dhan mashquulsantaa laakiin muhiimadu waa maxaad ku mashquulsantaa waqtiga oo dhan daqiiqad kastana waxaad qoraysaa qisada noloshaada